consultation la qabanayay wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda hawlaha guud ba hadda ka qayb galeen consultation-kii xanaanada xoolaha ku soo jirta hadda qata ku soo jirta oo loo qaban doono yani wax isbedelay annagu xiriiriyaan lacagtii ay leerka lacagtiisi waxaan u maleynayaa hal mashruuc bay ka soo daayeen hadda oo laga sameyn doono luuq iyo halkaas oo 25 milyan oo Nice Foundation loo dhiibay intiisa kale uu noo dhimay caqabadaha marka aanu imaado caqabadaha jira waxa waaye ibka jira meeshan anagu lacagta aan maamulayno mudana madaxweyne waa lacag deeq bixiyaal iska leh lacag anagu aan leeno Soomaaliland ama Jubbaland leedahay ma dadna waxa weeye lacagta deeq bixiyaashana wax la dhoo strings ku xiran ama doon conditions dadka ay u aqaana sida marka adiga aragtay ma aha adigana hadalka kuma adkeyn kartid dadku adkayso waxa lagu dhigay Jubbaland way adag tahay dadka kan waaya oo maartay deeq bixiyaasha la dagaalamay wad garsan isteed hebel ba u nugul wardaan u nugul horta danta aan ka hadalno oo mashruucan meel hebla laga raba biye laga ma rabo in lagu soo gado maxaan ku radaa caagado sababtoo caagadahan biye laga dhaansan yamaan lahayn shaqooyinkaas badan baan qabanay 1422 macallin ee wasaaradda kontarasha lacagtoodana bil walba helaan taas waxa si dheer macallimiintu waxa siin jiray 97 maanta intooda ugu badan 150 iyo ka badan ay qaataan qaar ayaa 330 qaato qaar 250 qaato qaar ayaa 230 qaato waynan hagaagtay intaan joognay hadda labada sano saddexda sano 17 iskuul ayaa la dhisay oo dhammaan shaqeynay maalin dhawaatada ballanqaadka asoosamis goobeen inta markii waan ka jawaabnay waqti waan geynay waxaan kala geynay quraasti insha Allah taala law bil gudaheeda waxaan dhisi doonaa qaam oo hadda ka samaysan biib yaan dhagax ka dhigi doonaa ilaahay duudin waxaan hagaajinay system lagu kalsoon yahay kala dambeyn leh institution kana u noqon kara laf dhabar taasoo minimize gareysa ama yareysa caqabadii wasaaradda ka jiray midda labaad waxaan mas'uul ka nahay mashruuca la yiraahdo oo ugu muhiimsan oo ugu weyn marka si loo fiiriyo dawlad goboleedka Jubbaland yes youth employment Somalia shaqa mashruuca shaqa abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed mudane madaxweyne 2015 kii waa mashruucaas laga saxiixa muday ninka hadda gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka system lagu mana dhisin consultative oo dawladda la tashaday iyo shacabkaba jahawareer badanana ka jiray istaraatiijiyadna muusan lahayn wuxuuna dhamaanayaa bishan December 31 waxaana 8 bilood hadda wasaaradda waxaan sameeynay mashruucaas nidaam iyo system lagu maareynayo waxaana maanta guul ah in Jubbaland shirkii wasiirka uu ka qayb galay adiga aad ogeed in la yiraahdo Jubbaland waxay gashay kaalinta koowaad Soomaaliya hana lagu da'do wasaaradda dhalinyarada sportiga Jubbaland imiladiisna waa ku keeni doona hadii ay raali ka noqdo qodob marka wax ma la qabtay yes wax baa la qabtay wax aad u weyn baa la qabtay oo aad u weyn oo u baahan in loo riyaaqo waxaan ka shaqeynay wasaaradaha intooda deegaanada aan haysan markay wasaarad meel ka guurto hadii mid kale deegaan aysan haysan in la raro oo meel la raadiyo hadda mesela wasaarad maanta guri kale ku jirto ma jirtaan u maleynayaa walina lama saxiixin marka wuxuu u baahan yahay sharcigaas inaad saxiixdo sifa agaasimayaashu ay u haystaan wax ayaga naftirkooda kala haga waqtiga shaqada soo gal lahayeen waqtiga bixinaan xuquuqda ay leeyihiin xuquuqda ayaga lagu leeyahay kulli halka soo kooda cadahay marka waxaan codsan lahaa in agtiga ayada la saxiixo ilaa ka noqdo
magacaygu waa Cabdishuuri Carab Cumar waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowlad goboleedka Jubbaland waxaan caawa kulan dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ka qabsoomay madaxtooyada kulankaas oo shir gudoominaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu ka mid ahaa kulamo isaga dhageysan jiray waxqabadka wasaaradaha iyo hawlaha shaqo ee wasaaradaha ka socda maadaama agaasimayaasha guud ay yihiin gundhig farsamo yaqaanada wasaaradda yihiin ajendaasha kulanka laga hadlay inta badan wuxuu ahaa in bal xog wareysto hawlaha shaqo ee wasaaradda dhanka farsamada iyo dhaadhicinta siyaasadda wasaaradda meesha ay marayso wuxuu madaxweynaha ka dhageystay soo jeedin wasaaradda qorsheynta oo inta badan qorshe hawleedka wasaaradaha iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka u matasha dowlad goboleedka Jubbaland oo ah xarunta dhexe ama hay'adda isku xirto qorshayaasha wasaaradaha waxaa sidoo kale ayagana warbixin bixiyay wasaaradda waxbarashada wasaaradda howlaha guud wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha runtii kulankan wuxuu muhiim u yahay in la ogaado bal wasaaradaha meesha ay wax marayaan heerka shaqada wasaaradaha ay gaarsiisan tahay higsiga wasaaradaha istiraatiijiyadda iyo mashruucda u degsan wasaaradaha iyo caqabadaha la xiriiro hawlaha shaqo ee wasaaradaha ay hayaan wuxuu sidoo kale kulankan hordhac u ahaa kulan guud oo isla xisaabtan ah wasaaradaha waxa u qabsoomay ilaa xilligii wasaarad walbaba la aasaasay oo isbuucyada soo socda rajeynaya inay wasaarad walbaba qorshaheeda ay soo hordhigto waxay u qabatay bulshada dowlad goboleedka Jubbaland wasaarad walbana doorka ay ku leedahay ay meesha ku cadeyso waxa sidoo kale ayadana diiradda lagu saaray in wada shaqeyn wanaagsan loo sameeyo wasaaradaha hay'adaha dowlad goboleedka Jubbaland hay'adaha fulinta sidoo kalena dardargeliya shuruucda wasaaradaha u diyaarsan ayna noqdaan kuwa dhaqan gala waxaana filaynaa in isku xirkan wasaaradaha iyo kulamada sidaan oo kale ah ay fursad fiican u sameynayaan in agaasimayaasha guud ay iska warqabaan caqabadaha jiro iyo waxa la qabtayna laga wada hadlo waxaan filaynaa in asbuucyada soo socdo wasaarad walbaba ay soo bandhigi doonto wixii u qabsoomay iyo waxa u qorshaysan iyo caqabadaha jiro wabillahi tawfiiq